wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa ay soo bandhigeen qalab casri ah oo sahlaya in xilliga habeenkii ee garoonka diyaaradaha aadan cad ay ka soo degaan diyaaradaha. qodob-wareedkaasina waxa eegaya wariyaheena Ibraahim Guudle Isxaaq. wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad iyo maamulka shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha ee February ayaa maanta soo bandhigay qalab sahlaya in xilliyada habeenkii ay soo degaan diyaaradaha oo ay dhawaan soo iibsatay dowladda Soomaaliya. qalabkaas oo sida mas'uuliyiintu ay sheegeen dhawaan la howlgelin doono. madaxda shirkadda February ayaa wasiirka uga mahadceliyay wada shaqaynta dhow ee kala dhaxaysa shirkadda, iyagoo sheegay in qalabkan uu muhiim u yahay horumarinta howlaha garoonka. maarayaha guud ee hay'adda duulista iyo saadaasha hawada Yuusuf Cabdi Cabdulle ayaa u mahadceliyay shirkadda February oo fududeysay qalabkan uu soo gaaro magaalada Muqdisho. waxaana wasiirkan la socodsiinaynaa in howlihii shaqo uu wasaaradda iyo hay'adda uu eegmaday qaybaheeda ugu horeysay ka dareemayseen in nalalkii lagu ifinayay runway-yada oo ilaa hawada inta laga soo celinayo howlaha shaqo oo u eegmaday maxaydaha hay'adda isagana micnaha oday uga yahay in bilowgeedii ugu horeysay maanta ugu jeedaan halkan waana micnihii mudnaan kuwaaday leedahay. waxaan leenahay haddii la yidhaahdo wasiirka howlahan bilowga ah insha allah in micnihii dhammaystirkeeda ilaa hawada gacanta ay ka soo gasho oo micnihii waddanka sida uu ballan qaaday in priority ay u tahay muhiimadiisa koowaad in micnihii meesha ugu dambaysay in aan sii socon doono. wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaa sheegay in qalabkan uu wax badan ku soo kordhin doono garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in qalabkan rakibaadiisa sida uu dhaqsiha badan ay bilaaban doonto. waxaa maanta farxad inoo ah inaan halkan ku guddoonno qalabkii lagu ifin lahaa meesha diyaaradaha ay ku soo degaan jidka ay diyaaradaha ku soo degaan runway-ga. qalabkani oo markii aan soo degay xilkan aan qabtay wixii ugu horeeyay aan qornay inaan wax ka qabanayna ahaa garoonka aadan cadda sida aad la socotiin habeenkii diyaaraduhu kama soo degaan, nal ma laha ay diyaaradihii ku soo degaan. marka arrintaasina dowladda Soomaaliya dowladda cusub waxay u noqotay priority, waxay ahayd shay aan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labadaba aan ka wada hadalnay. Ibraahim Guudle Isxaaq, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.